السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقيبتي لبات sida loo sameeyo cover part 2 okay la soco waxa la yahay file new xogaa waa yar bobsinaya fadlan ila soco widthga waxaad ka dhigtaa 210 heightga waa 297 waa A4 size afwan okay inta waxu qortaa cover book 2 kadib waxa leedahay okay then waxaad doorataa rectangle tool colorka waxaad ka dhigtaa black oo xogaa khafiifa then kan dhig rotate ku samee rotation ku samee okay waka okay kadib igara la hada waan yar gabsanahay okay marka sidoo kale waxaad doorataa hadana rectangle tool colorka waxaad ka dhigtaa blue okay blue see blue ka dhig then halkan kushida okay waa fahnay kadib waxaan leeyahay background ka ayaan tagayaa then hadana waxaan dooranayaa rectangle tool colorka waxaad ka dhigtaa white halkan dhig shape-ka correct rotation ku samee halkan dhig okay rotation wax yar okay kadib waxaan tagayaa hadana background then waxaan dooranayaa polygon tool halkan aan dhigayaa shape-ka halkan kan drag and drop ku samee rotation ku samee kan okay rotation ku samee halkan u sii dhaweey xogaa still rotation ku samee okay halkan okay hadana waxaan dooranayaa background then waxaan dooranayaa rectangle tool colorka waxaan ka dhigayaa that one okay halkan ku sii deynayaa okay shape-ka soo qaad korkaas kan rotation ku samee marka rotation ku samee okay rotation ku samee okay wax yar halkan kan okay waxaad doortaa hadana background then rectangle tool waxaad ka doorataa colorka waxaad ka dhigaysaa blue oo xogaa dark okay this one maybe this one no that one okay kan oo kale ama kan oo kale no kan oo kale yes okay halkan dhig kadib xogaa kor u soo qad then drag and drop ku samee waxaad dhigtaa marka xogaa halkan kan drag and drop ku samee weli okay okay then kan xogaa kor okay yes kadib عفوا ولي كان روتيشن حوا ku samee okay enough kan waxa ku qadis kadib waxaad doorataa background then rectangle tool colorka waxaad ka dhigtaa white عفوا اقرا هذا okay colorka halkan dhig kadib waxaad sameysaa halkan kan waxaad ku sameysaa marka drag and drop ku samee okay halkan kan marka halkan kan okay marka waxaad doorataa this one polygon tool right click then waxaad leedahay blending options kadib stroke waxaad ku dar size-ka yes okay kadib waxaad sameysaa
polygonal kana waxaan soo dhex gelinaynaa image sawir file open then image ka soo qabso tusaale this one xogaa waaweyn waxaan ku sameynaynaa crop ayaan ku sameynaynaa crop image kan crop ku sameynaynaa okay drag and drop ku samey soo jeed halkan keen okay xogaa size-ka aad buu u weyn yahay marka waan yareynaynaa size-kiisa waan yareynaynaa okay halkan markaad keento waxaad sameysaa right click then waxaad leedahay create clipping mask okay create clipping mask okay enough waa sameeyay marka waxaan soo saarnay hadda cover qurux badan waxaa inoo haray marka qoraalkii background text then text dooro text waxaad ka dhigtaa colorkaas then halkan keen for example buugga magaciisa oo kale hadda aniga waxaan ku qorayaa cover 2 then waa tusaale kadib xagaa soo qaad halkan keen cover 2 okay buugga magaciisa oo kale halkan ku qor okay isla asagan copy gelinaya marka control J aan leeyahay halkaan aan keenayaa marka colorkan ka bedelaya waxaan ku qorayaa tusaale 2009 oo kale colorka waxaan ka dhigayaa white okay colorka white aan ka dhigayaa marka okay waxaan keenayaa halkaan okay marka isla asagan copy gelinaya control J jida halkaan keenayaa hala okay 2019 so asagan copy gelinaya marka control J halkaan aan keenayaa cover 2 oo kale aan ku qoro cover 2 okay colorka aan bedelo okay xagaa kaas xagga aan geeyo cover 2 colorkiisa tusaale aan ka dhigo blue that one blue aan ka dhigo okay ama blue kaas okay masha Allah waxaan sameynay cover qurux badan baynu sameynay hadda waxay la tahay inaad ka faa'iideysan doontaan insha Allah please channelka subscribe garee asxaabta la wadaag insha Allah casharo badan oo qurux badan waa soo gelin doonaa ee ku saabsan Photoshop iyo kuwa kale oo muhiim ah insha Allah please subscribe garee channelka like comment السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته